السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha nagamada meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha allah waxaan ku baran doonaa qaabka Microsoft Word loogu sameeyo header iyo footer. balse marka hore daawada, haddii aad tahay saaxiibka cusub channelkeena Hanweyn Media, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena aad furto gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale ha ilmaamin inaad like, share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan. mahadsanid, weligaana guuleyso. soo dhawow mar kale daawade. muuqaalkan insha allah waxaan ku baran doonaa qaabka loo sameeyo headerka iyo footerka. dabcan header waa qaybta ugu sareysa fooqa kore ee warqadan dokumentiga ah ee Word. sidoo kale footerna waa qaybta ugu hooseyso badanaa lagu qoro page numberka. markii aad soo gasho qaybtan gaar ahaan dokumentiga, marka aad soo furto waxaad soo galaysaa qaybtan ay ku qoran tahay insert. halkaas ayaad dooranaysaa. kadibna waxaa si toos u imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay header and footer. header imaaw qaybtan hoose dhibicda yar, halka jugsi. dabcan waxaana kuu soo baxaya qaybahan kala duwan oo kala nooc ah. hadba nooca ku cajab geliya ayaa dooranaysaa. halkan hoose usii rog, waxaa kuu soo baxayo qaybo kale oo aad u badan. qaybtii ku cajab gelisa ee aad ka hesho ayaadna dooranaysaa. tusaale, hadda aniga waxaan rabaa inaan tijaabiyo qaybtan. halkan waxaad ku qoraysaa dokumentiga aad rabto inaad abuurto magaciisa. waxaadna ogaataa dokumentigan aad abuureyso inta warqad uu ka kooban yahay dhammaantoodba waxay yeelan doonaan hal header ama halkaas madax oo ay ku qoran tahay ciwaanka. warqadaha markastoo ay sii bataanba waxay yeelan doonaan halkaas magacun. ciwaan ayaan iminka abuurayaa. waxaan iska leeyahay oo kale tijaabo. okay, iminka ciwaankan ayaan abuuray. kasoo qaad, waxaan u sameeyey tijaabo. waxaan tijaabeynaa marka in warqadahan dambe oo dhan ay yeelanayaan halkan magac. u fiirso, hadda kaliya waxaan taaganahay page koowaad. hadda waxaan u gudubnay page labaad, isna sidoo kale waxa uu yeeshay isla headerkii. marka waxaad ogaataa bar waliba oo header aad abuurto, dhammaan dokumentiyadu waxay qaadanayaan hal header. halkaas header ayayna ku midoobayaan. okay, noocyo kale ayaa jiro. dabcan aniga noocan ayaa cajabgeliyay, sidaasaan ku doortay. adiga waqti fiicanna waad haysataa, kii ku cajabgeliyay aadaan dooran kartaa. qaabkan ayaa loo sameeyaa wax loo yaqaano headerka ama madaxa sare ee dokumentiga. sidoo kale markan waxaan abuureynaa wax loo yaqaano footerka ama qaybta dambe. sidoo kale insert imaaw, halkan ay ku qoran tahay footerka jugsi. isna sidoo kale dhowr nooc oo kala duwan ayaa ku jirta. qaarkoodna waxay leeyihiin kaliya page number. okay, tusaale kana iminka tijaabinaya. waad aragtaa halka ina kasoo muuqda page 1. halka hoosena waxaa kasoo muuqda pagekii labaad. dabcan sidaas ayaad ku sameyn kartaa headerkaaga iyo footerkaaga. haddii aad diyaarinayso book ama dokumenti aad u ballaaran, wuxuu kaa saacidayaa marka in dokumentigaaga uu islahaado markii la daabacayo in aad kala fahanto pageka aad daabacday iyo inta ku dhiman. maxaa yeelay waxaad haysataa page number oo qaybta footerka ah. sidoo kale kuma wadeereyso ciwaanada. marka waxaan filayaa inaad fahantay qaabka loo sameeyo headerka iyo footerka. laga bilaabo maantana aad samaysan doonto insha allah. haddaba waxaan jeclahay muuqaalka in halkan kusoo gabagabeeyo.
dabcan inta aan muuqaalka ka bixin daawad waxaan kaa codsanayaa haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like inoo saar. haddii aad tahay saaxiibka cusub page-kana Haween Media waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena aad like, share iyo comment nagu caawiso. muuqaalka intaa kulmi doona walaalkeen Cabdirasaaq Cabdullaahi ku dhaafaya. sidaa nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.